muddooyinka u dambeeyay deegaanka Buuhoodle waxaa ka socday koobka bisha barakeysan ee Ramadaan kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatume Isteedo Soomaaliya isla markaana ka soconaya garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium. koobkan ayaa waxa ciyaaraya 7 naadi oo kamid ah heerka koobaad ee deegaankan Buuhoodle waxaana koobkani xariga ka jaray wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatume Isteedo Soomaaliya. haddaba koobkani muddo dheer soconaya ayaa waxaa ku guuleystay kooxda New Star oo kamid ah naadiyada ugu cadcad deegaankan Buuhoodle iyadoona rigoolayaal kaga qaaday naadiga Darwiish oo isaguna ka jira deegaankan Buuhoodle. waxaana maanta si loogu wareejiyay abaalmarinta naadiga New Star lagu qabtay hoolka shirarka Cabdiguray Balaasa xaflad balaaran kaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatume iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatume Isteedo Soomaaliya oo halkaasi ku wareejinaysay naadiyada abaalmarintii ay ku guuleysteen. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka Khaatume Faarax Cadda Faarax. dhammaantiin waa idin salaamaya insha Allah ka soo qaybgalayaasha shirkani bahda dhalinyarada bahda isboortiga bahda saxaafadda bahda xukuumadda bahda wasiirada bahda golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka intiinaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta insha Allah tacaala waxaan doonayaa inaan laba kelmadood halkan ka iraado. waxaynu maanta gabagabayn doonaa insha Allah koobka Ramadaanta aynu qabanay koobkaasina kulli waxaana laga sugayaa abaalmarinteedii haddana insha Allah tacaala waxaan diyaar ka nahay inaan koobka abaalmarintiisa aanu bixino bal cidda ku guuleysatay waxaan ku guuleystay New Star kooxda koowaad kooxda labaadna waa kooxda Darwiish. marka insha Allah tacaala labada kooxoodna aad baan u salaamayaa sida wacanay finalka uga qayb galeen ama ay soo gabagabeeyeen waliba iyagoo saaxiibtinimo muujinaya marka ay kala badiyeen waanba dhex taagnaa maalinkaasi waxay ahayd maalin taariikhiya inta laba kooxood kala badiyaan waliba iyagoo shaqareynaya oo gacmaha haysteen in garoonka ka soo dhamaadaan. maantana koobka aynu bixin doono kulli dhalinyarada isboortiga weeye koob badan waa inay sugayaan koobkaasina kubadda kolayga iyo kubadda gacanta iyo waxaan sugaynaa ciyaaro badan oo aanu bixin doono koobkoodii weli maysan soo gabagaboobin laakiin insha Allah tacaala iyaguna waanu ku jirnaa inaanu koobkaasi laftigooda aanu qabanno oo weliba aanu soo gabagabayno. وانا idin salaamaya insha Allah tacaala dhammaantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha isboortiska maamulka Khaatume Liibaan Maxamed Aadan. هدف والله أشكر الله سبحانه وتعالى marka labaad wuxuu mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha bulshada ee Khaatume gaar ahaan wasaaradda isboortiska ayaan mahadnaqayaa oo soo gashay koobka Ramadaan Cup ee maanta halkan lagu soo gabagaboobay. hadda kale waxaa iskale bahda isboortiga kooxaha sareeyada oo si fiican ugu dhamaaday koobku maantana waxaa halkan lagu tiraba kooxdii koobka qaaday iyo kooxdii kaalanta labaad ee koobka laga qaaday labada naadi oo mahadsanyihiin wayna ka fiicnaadeen kooxihii kale ee la soo tartamayeen maadaama ay isku yimaadeen kala dambaystii. maantana waxaan guddoonsiinaynaa shahaadooyinkoodii iyo koobkoodii xaq u lahaayeen. wasaaradda arrimaha bulshada ee arrinta ka soo shaqaysay ee koobtay ururada aad iyo aad baa iyadana ugu mahadnaqaya. waxaan kaloo mahad u jeedinayaa waxaan war u jeedinayaa dhammaan dibadda iyo gudaha Khaatume sool sanaag iyo cayn khaas ahaan gobolka cayn qurba joogteeda iyo dadka jooga gudaha maamulka garoonka in loo dhiso isboortiga oo gobolka garoonkiisa gacanta la saaro si degdeg ah loogu shaqeeyo dhalinyarada la dhiirigeliyo runtii isboortisku qiimaha uu leeyahay oo bulshada u leeyahay dhalinyarada waynu garan karnaa. maanta dhalinyaradeena joogta dhibaatooyinka haysta waxa weeye tahriibta leh mukhadaraadka leh isboortisku waxaasoo dhan waxa weeye dhalinyarada ku mashquuli lahayd howlaha iyo isdhexgalkooda iyo wanaagga isboortisku leeyahay xagga maaragtay jirka dhismihiisa xagga maskaxda
xagga maaragtay isdhexgalka xagga maaragtay bulshada oo loo jeediyo xagga wanaagsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiir Cabde oo runtii hawsha iyo halgamaa Axmed Cabdi Guray hawsha muddo badan ku soo jiray. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام ناديga xidiga cusub todobada naadi ee ka ciyaaraya gobolka Cayn qaaday koobkii waa ku faraxsanahay oo soo dhaweynana oo hambalyeynana waxaan leenahay hambalyo ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka Khaatumo ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay xafiiska golaha deegaanka degmada Buuhoodle iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo ee State of Somalia. hadda faarax hadda wuxuu bixin doonaa shahaado sharaf ay mutaysteen qaybo ka mid ah xukuumadda dowladda Khaatumo haddii ay tahay golaha deegaanka xubno ka tirsan xildhibaanada dowladda Khaatumo iyo golaha wasiirada shahaadada koowaad waxaa halkan shahaado sharaf ku siiyay xafiiska golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle hawlkarnimada iyo daacadnimada 3 sano ee ugu dambeysay ay soo fuliyeen shahaado sharafta waxaa gudoomi doona gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Buuhoodle soo dhaweeyay Abdulaziz Aadan Jaamac.